kulankan ayaa ahaa kulan sanadeedka beesha Moobleen Cismaan ee beelweynta Mudlood waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira dhaqanka, siyaasadda iyo qaybaha kale ee bulshada. Duco iyo is-arag iyo kala warqaadasho ayuu ahaa kulankan waxaana laga jeediyay khudbado kala duwan oo taariikhda beesha waxaa sharaxaya Cumar Abuukar. beeshu waxay duubkii ugu horreeyay ay ku duubatay ee deegaan u ahaa deegaanka la yidhaaho ceel cool magaca la Moobleen Cismaan Gaaragolale kadib waxay u soo wareegtay deegaanka hadda ay degan tahay ee lagu yaqaano ee caamka ku tahay waxayna degan tahay 536 sano ay degan tahay. deegaanka hadda ay degan tahay beesha waxay degan tahay maalintii laga soo bilaabo ehelka Mudlood oo wada deganaa maalintii beesha soo tallaabtay ee webiga galbeedka uga soo tallaabtay mar labaad aan ku celinaa waxaa laga joogaa 536 sano ayay beeshu halkaan degan tahay. beeshaan waxay leedahay taariikho badan ay soo martay waxaa lagu yaqaanaa beeshu tacab iyo wanaag iyo wadajir iyo qadarin ummadda Soomaaliyeed ee dhexdeeda ku leedahay. beeshaan deegaamada ay degan tahay waxay xuduud leedahay gobolka Hiiraan waxay kala leedahay dhanka meel la yidhaaho fiido waqtiisoo la yidhaaho Helacadaab. gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Yuusuf Madaale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cumar Islow ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii kelmadaha ka jeediyay kulanka. aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan qiimaha badan ee ducada iyo kala warqaadashada ee beesha Moobleen Cismaan halkan ay ku yeelatay. sidaad ogtihiin Moobleen waa boqortooyo dhaqan iyo asal ahaanba soo jiray ka beelaha waaweyn iyo Mudlood. beel walba oo Mudlood ka mid ah runtii waxay ahayd beel la dirtay gumeysiga la dirtay oo labada shabeelle ku diriray. Moobleen taariikh fog ayay leedahay laga soo bilaabo 1897 ilaa iyo hadda. maamuuska Moobleen Cismaan madasha waa ka muuqayaa maanta. difaaceen dadkaanna doorkood ay qaateen waa waxa aan u aayayno. dad badanaa waxaa laga yaabaa inay siradan Moobleentolo mucafar ama sawaasha waa yeerihaye laakiin meesha uu ka sheekeeyey nin ka sheekeeya qalin waa u dhiibtay taariikhdooda Cumar ka sheekeeyey inta meel uu jiro iyo dagaalkii Itoobiya intii uga go'day 75,000 oo qarnigaas tagay dhimatay waa dareemi kartiin hadday joogi lahaayeen imisaa ka farxan lahayd. marka waa in la tixgeliyaa 75,000 kunoo dhimatay oo hal qarni mootan wixii ay dhali kareen. waxaan filayaa xisaabtaasi haddii qariga buug loo qaato buugu waa buuxsamaya asagoo xisaabtu dhammaan. Cali Jeesto oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii dhaqanka ee ku hadlay afka dhaqanka ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay kulan sanadeedka beesha Moobleen Cismaan. dareemaha ayaa u kiciyey marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin waan idin soo dhawaynaynaa. dhammaan gogoshu hadday taariikhda laga sheekeeye tahay iyo haddii ay tahay meesha ay ku soo aaday iyo xilligan meesha la dhigaba iyo haddii ay tahay wixii fariin oo ku dhex jiri karood isleedihiin Mudlood ama dhagaha ku maqlo
amba indhaha ku arka dhammaantoodna waa idinka aqbalna waa dareemi karnaa taariikhda dheer oo aad ka sheekeynayseen dhammaan Soomaaliya abaalay ku leedihiin khaasatan mudulooda abaal ku leedihiin kuwa gudta abaalka aad ku leedihiin oo ka heshiin mudulooda Allah ka dhigo kuwa ku sii yeesho oo meesha wanaagga badan ay ka hayaan ka sii hayaan adinka Allah idinka dhigo. Imaam Maxamed Yuusuf ayaa gunaanadka soo xiray kulanka munaasabada isaga oo madasha duco uga jeediyay. شيطان الله نجح حجابه يا أنت الدماء حول وابوه وقادر هذا وخير الدويل ما تطلع الصيام إلهي النسود الدوسيو وحنسوق إلى وخير الله نقدره شرط يا شيطان الله نجح حجابه وحي شر بدنا مدلود إلهي متصم مدلودنا ما لنا ودعك تعالوا صار أنت أساكد يا صمد الله كأقبله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الناصر سعدال رادية هي تلفزيون كدلسن مقالة مقدشو.